بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارته وين السلام يا ملك استود شوكتين متى المقال كيني وحنا كسابسن yahay muhiimada ay leedahay shaqo walba gacanta ku hayso inaad kala qaybiso imika matalan kulli isku jadwal manihin halkan waxa iga dhageysanaya laga yaabaa inaad tahay arday inaad tahay qof shaqeynaya inaad tahay qof aan shaqeynayn qof amba matalan gurigiisa ka dhex baaya mushtara waxa jira hooyooyin badan oo awlaadooda korsada laakiin tahay iskuulka ku maqan yihiin ayay baayac mushtara sameeyaan online ka dhex sameyn karaan amba ardayad baa taado gurigaaga iska jooga ayaad online wax ka dhigataa maanteen isku jadwal manihin waad shaqeysaa amba ma shaqeysid arday baa tahay amba ma tihid xaas baa tahay amba ma tihid yani dad badan baa halkan igala socda oo kale isku jadwal manihin haddana tiyo sidaa tahay muuqaalkan uu inaga wada dhaxeeyaa sababtoo ah natiijada hadhow ka soo baxaysa ayaa ah mid uu qof waliba haddii la yiraahdo uu ku gaarayo heerku doonayo meeshuu doonayo inuu ku gaaro insha Allah shaqadood kala qaybiso saddex faa'iido leedahay taw horeysa waxa weeyaan in hawsha wada aragteen markaad doonaysid inaad hawl qabato markiiba caajis baa ka soo galaya markiiba culays baad u arkaysaa markiiba waxaad u arkaysaa waxan inuu yahay wax weyn oo culus taasaa keenta in maalinba maalinta ku sii xigta qofku isiraahdo bari baan sameyn bari markaynu gaadhnana maanta wax kala ku yar kuma marsoonasaayo waxaad leedahay okay waxan wax degdeg maaha haddana bari ayaan sameyn arintiiba habba sidee ku riixaysa bishii ku dhamaatay markay sida arrimuhu yihiin hawsha markaa inaad arintii aad rabtay inaad sameyso inaad kala qaybiso waxay ku fududeynaysaa arinta horeysa waxa weeyaan inay culayskii aad arkaysay uu fudayd ka dambeeyo waayo waxaad tiri arintan aan qabanayo waxaan ku qabanayaa maalinta isniinta intaasan qaban salaasada inta kala qabanayaa arbacada khamiista jimcaha kaba soo qaad sharcishaad u kala qaybisaba arintii culayska kula ahayd markaad hadba maalina tiraado intaasan qaban inta markaan gaarsiino waan ka haraya maalinta ku xigtana halkii baan ka dhaqaaqiyo intaan ugu talagalan gaarsiinaya markaad arintii kala qaybiso culayskii markii hore aad arkaysay fudayd ayuu ku dambeynaya waayo in kaliya kuma dhameynaysid 5 maalmood baad u qabatay laakiin tan waa tusaale un 5 baad u qabsan kartaa 10 cishaad ka dhigan kartaa bildan ayaad ka dhigan kartaa 20 week 3 week 4 week 10 week habba sidoo arintu u eeg tahay ayay ku xiran tahay marka taasi qof walba isagan u deynaya intan waa example way ariyaro iska fudud ba noqoto hadii kugu cuslaataba 5 cisho waad u kala qaybin kartaa in 2 week waad u kala qaybin kartaa 10 cisho waad u kala qaybin kartaa hadba sida adigu ritmigaagu u yahay ayay ku xiran tahay marka taw horeysa waxa weeyaan culayskii aad arkaysay ayaa fudayd ku dambeynaya markaad hal arin dhowr cisho kala qaybiso arinta labaadna waxa weeyaan walaalayaal markaad hawsha doonaysid inaad qabato aad kala qaybiso focuskaad ku ilaalinaysaa haddaad tiraado maalin kaliya waxaan qabanayaa jirka ayaaba inoo ah maxaa la yiraahdaa message weyn oo soo diraa jirkeenu markiiba diiqad baa la dareemaa markiiba maskaxda ku cuslaanaysa si kala la yar noqdaa markood daal dareento marka inaad arrimihii kala qaybiso waa adigoo break yar ka yar qaadanayo soo yar nafisaydi oo waxyaalo kale ku soo yar mashquulay waad aragteen ardayga markaynu ahayn iskuulka markaynu xiisad ama laba xiisadood isku daba xigaataynu galno in waa talayna siyo break yar oo ku soo cuntayno aynu ku soo nafisno labadii xiisadood iska la bedelay ayaanu helnaa 5 ilaa 10 minute intuu macallinku soo socdo inaynu yara nafisno taaba keenaysa hadhow toole in uu maskaxdii uu yar qaato hawo wax kale lagu yar mashquulo oo adigoo fresh aad meesha hadana dib u soo fariisato casharkiiba sidii baad concentration kaaga ku helaysaa marka shaqadaadood kala qaybiso waxaad ku helaysaa maanta intaad ugu tala gasho markaad dhamayso iskaga hadho in beritoole markaad soo noqoto halkii baad ka qaadanaysaa laakiin haddaad dhowr saaco tiraado maanta 5 saacaan ku dhameynaya hal arin oo dul fadhiya maanta oo dhan waad ku buuqaysaa focuska ka halaabaya focusku meel uu ka halowsan yahayna walaalayaal natiijo qurux badan kama soo baxaan telefoonka markaynu isku sawiranaba focuska ayaa la taabtaa telefoonka screenkiisa la yar taabtaa si uu meesha aad rabtay inaad sawirto uu soo baxo hadduu focusku ka halowsan yahay
waxaa kuu soo baxaya sawir shuucaac leh. maskaxduna walaalayaal waa sidaasoo kale. elektroniyadan la sameynayo maskaxda inay ka eegteen, ma fahanteen? focusku qofku ka halowsan yahay wax badan baa dhaafaya. shaqay wax ku dhaafayana natiijadeedu ma qurux badna. marka inaad arinta kala qaybiso, shaqadaad sameynayso kala qaybiso, focuska kugu hagaagaya. wana arinta labaad in ka helino in kala qaybinta hawsha aan rabnay inaynu qabsano. natiijada saddexaad aynu ka helino hawsha aan rabnay inaan qabanano waxa weeyaan in ay shaqo qurux badan meeshaas ay ka soo baxayso, in aad shaqadii dhammaystirayso, in alxamdulilah rabbil caalamiin wixii aad lahayd culays buu ahaa fudeed ku dhammaanood leedahay miyuumaba intanay ahayd wixii la cuslaa. marka ta saddexaadna waxa weeyaan kala qaybintaad hawsha aad qabanayso kala qaybinayso natiijo qurux badan ayaa ka soo baxaya. weliba taa waxaad kusoo dhammaystiraysaa in arrinkii aad bilowday aad dhammaystirto. arrimahaynu qabanano walaalayaal si aynu xiiso ugu yeelano mar walba waa inaa step by step loo sameeyo. ha degdegin. waxaynu ku jirnaa bulsho ina bartay cararaay, caymadaay, tartamaay. dadkaa tartamayana ugu dambeynta way xiiqaan oo dhexday ku joogsadaan. laakiin qofka qunyartiisa iska socda ee hadba nasanaya, hadba yaro lugeynaya, hadba nasanaya, hadba yaro ordaya, hadba nasanaya, sida uu u socdo uu kolba wuxuu soo qaaday u dhigayo u soo qaaday u dhigayo unbuu arkaya hadhow tole isagoo hawshiisii dhammaystay, isagoon isxiiqin, isagoon iswareerin, isagoo focuskuna ka halaabin ayuu arkayaa arintiisii isagoo dhammaystirtay. marka bulshadani waa tuu yaro wareersane inaynanu ku dayan, inaynayna waalin. tartiibtaada wax iskaga qabso, wuxuu ilaahay kuu qoro sinaba kuma seegaysid. alxaraka laha baraka. waxaan rajeynayaa inaan si fiican ugu yeedhiyey in xarakaadka barakaa ku jirta, inaad dhaqdhaqaaqdo barakaa ku jirta. marnaba laynama oran halkaan iska fadhi adoo fadhiya wax ku imanayaan. waynanu dhaqdhaqaaqno, waynanu action la imano. actionkaaynu la imanana bulshadeenu khalad bay ka fahantay in waxaa la moodayaa inaynu orodun wax lagu helayo. maya, caqlibaa wax lagu helaa, time baa wax lagu helaa, qorshaa wax lagu helaa. adigoo wax nidaamiyey ayaad wax ku helaysaa. nidaamintaada wax nidaaminaysana wax badan ayuu kuu seef gareynaya. wuxuu kuu seef gareynayaa caafimaadkaagii, wuxuu kuu seef gareynayaa inaad waqti u hesho waxyaalaha kale kugu hareereysan. ilan qorshahan aad gacanta ku haysoon maaha noloshaadu. noloshaada waxa ka tirsan faamilkaagii, hooyada, aabaha, walaalaha, awlaadaadii, xaaskaagii. amba haddaad arday tahay dee tacliintaadiiba ayaa ku jirta noloshaada inaad wadato. marka wuxuu kuu seef gareynayaa waxyaalaha kugu hareereysan kale inaad wax qorshaysood, wax nidaamisood, balangareyso, step by step iskaga qabatona wuxuu kuu seef gareynayaa walaal qaybtii creativity-ga. because maanta oo kaliya waxba kuma ogaan kartid. maanta haddaad qayb wax qabato ood arrintii ka hadho waxyaalo kale iskaga mashquulshood soo qabsato, wixii aad maanta dhan soo aragtay ayaa maskaxdaada ku shubaya arrimo kale. arrimaha kale maalinta lamaad intii yareedaad qorshaysay inaad qabato ayaad u helaysaa fikrado cusub, ayaad u helaysaa inaad arrimaha si yaroo kaloo nidaam yaroo kaloo cusub aad wax ku qabato. waxaad u helaysaa inaad kalaro jadiida ku samayso, fikrado jadiida ku samayso, amba qaab cusub oo fudud oo u shaqaysataa baad soo heli kartaa oo aad shaqadii ku dhammayn karto. marka shaqada kala qaybi, natiijadu waxay noqon doontaa insha Allah mid qurux badan. ilaahay alla aamino. salaamu calaykum.